بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دhowaada walaalayaal muuqaalkan waan rabnay inaan kaga hadalno adkaarta iyo ducooyinka la akhristo marka uu qofka muslimka ah hurdadu u iman weydo ama uu ka cabanayo hurdo la'aan ama markaa jiif la'aan adkaartan soo socota waxa weeyaan waa ducooyin ku soo arooray kutubta sunnada hase ahaatee axaadiista ay ku jiraan ayay culummadu daciifiyeen si kastaba ha ahaatee culummada islaamku waxyaalaha loo yaqaano fadaa'ilil acmaal camalada fadligooda marka uu xadiidku uu ka warramayo xitaa hadduu xadiidku uu daciif yahay way ku dhaqmi jireen waxa keliya oo aad laysaga fogeyn jiray xadiiska aadka iyo aadka u daciifka ah marka ducooyinkan waa ducooyin soo arooray oo markaa kaa caawin doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala in aad hurdo wanaagsan seexato marka xadiiska koowaad waxaa laga warinayaa saxaabigii zayd ibnu thaabit radia allahu canhu inuu yidhi shakawtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan markaa u cawday rasuulkii ilaahay oo waxaan uga cawday buu yidhi araqan asaabanii hurdo la'aan i asiibtay marka hurdo la'aan igu dhacday ayaan u cawday faqaala wuxuu dhi nebigii qul waxaad dhahdaa zaydow allaahumma gaarat الnujuum wahada'at الcuyuun wa anta xayun qayuum laa ta'khuduka sinatun walaa nawm yaa xayu yaa qayuum ahdi leyli wa anam cayni ducadu waxa weeyaan macnaheedu allaahuma gaarat الnujuum ilaahow waxa markaa soo baxay xidigihii waa habeen wahada'at الcuyuun indhihiina markaa waxa weeyaan way xasileen oo dadkiibaa seexday weeye wa anta xayun qayuum adiguna waxaa tahay alla nool oo u taagan inuu uunkiisa maamulo laa ta'khuduka sinatun walaa nawm hurdo iyo caajis ama wahsina kuma qabto markaa rabbiyow yaa xayu yaa qayuum waa allaha nool ee u taagan uunkiisa inuu maamulow ahdi leyli habeenkayga markaa ii deji oo aan ku xasilo habeenkan wa anam cayni ishaydiina markaa ii seex dabadeedna wuxuu dhahay zayd faqultuhaa sidaasaan ugu ducaystayo faadhaba allahu caza wajalla cannii maa kuntu ajid markaasaa ilaahay iga kaxeeyey wixii aan helayey oo ahaa hurdo la'aan waxaa kaloo jira xadiis kale oo imaamu tirmidi uu sunanka tirmidiga ku soo saaray xadiiskaasina wuxuu ka warramayaa hurdo la'aanta waxaa laga wariyey burayda inuu yidhi shakaa khaalid ibnu lwaliid almakhsuumiy saxaabiga khaalid binu waliid ee reer bani makhsuum radia allahu canhu ayaa u cawday ila annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu u cawday muxuu ka cabanayay hurdo la'aan faqaala wuxuu dhahay khaalid yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow maa anaamu alleyla min alaraq habeenkii lama seexdo hurdo la'aan bay hayse taasaanan la seexanin buu yidhi faqaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigii baa yidhi markaa idaa aawayta ilaa firaashik markaad u hooyatood aaddo xagga iyo furaashka ama joodarigii ama sariirtii aad ku seexanaysay xaggeeda markaad tagto faqul dheh allaahumma rabba asamaawaati asabc wamaa adallat warabba alardiina wamaa aqallat warabba ashayaatiini wamaa adallat kun lii jaaran min shari khalqik kullihim jamiica an yafruta calaya axadu minhum aw an yabgiya caza jaaruk wajalla hanaa'uk walaa ilaaha gayruk laa ilaaha ilaa ant ducadan waxa weeye oo wuxuu dhahaya qofkii muslimka ahaa allaahuma rabba asamaawaati asabc ilaahayow rabbiga iskale toddobada samow
wamaa adallat iyo wax allaala wixii samooyinkaasi ay marka hadhinayaan oo ay saqaf u yihiin ama sanqaaf ay samadaasi u tahay waa wixii dhulka saaran iyo dushiisa markaa wixii saaran oo dhan rabbigoodu wa rabba alardiin iyo rabbiga dhulka ama dhulalka faraha badanow wamaa aqallat iyo waxa dhulkaasi xambaarsan yahay oo bani aadam iyo xayawaan iyo dhir iyo wixii la mida rabbigoodu wa rabba shayaatiini rabbiga shayaadiinta wamaa adallat iyo waxay baadiyaysayaanba rabbi waxa u ah ilaahay baa u ah subxaana wa tacaala kullii ii ahow jaaran mid ii gargaaraya iiga noqo oo maxaanka lagaga gargaaraya min shari khalqika ilaahayow makhluuqaaga sharkiis kullihim jamiican dhammaantood kulligood dhammaantood shar kastay leeyihiin sharkoodan kaa magan gelaya dadkii an yafruda calaya axadun minhum waxaan kaa magan gelayaa inuu mid igu xadgudbo ayaga ka mida bani aadamkii aw an yabgiya ama inuu igu kibro caza jaaruk waxaa markaa weynaaday oo sharaf batay inaad jaarnimadaadii macnaa inaad ii gargaarto ayaa sharaftu ay ku jirtaa ama sharaftii iyo cizigaagii ilaahayo waxaa laga helayaa maxay jiiraan in lagula noqdo oo lagaa dalbado magangelyo iyo gargaar wajalla hanaawuk ammaantaaduna way weyn tahay walaa ilaaha hayruk ilaah aan adiga ahayna ma jiro laa ilaaha ilaa ant ilaah xaq lagu caabudana ma jiro adiga mooyaane ducooyinkan sida aynu sheegnay waxay ku soo arooreen axaadiis ay culummadu daciifiyeen hase ahaatee waxay ka mid yihiin fadaa'il alacmaal camalada markaa fadligooda camal kastaba fadligiisa culimmaduna markay ka warramayaan sida aynu hore usoo sheegnay fadaa'il alacmaal way sahashadaan xadiiska daciifka wayna qaataan wayna ku dhaqmi jireen wayna ku ducaysan jireen ilaahay waxaan weydiisanayaa qof kasta oo markaa ka cabanaya hurdo la'aan inuu ilaahay hurdo wanaagsan uu u keeno subxaanahu wa tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu